kulanti wanaagsan daawadayaal giddigiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. Haddaba maanta waxaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa qiso kale oo ka mid ah qisooyinkii fanka Soomaalida. qisada maanta waxa ay qusaysaa kana hadlaysaa mid ka mid ah abwaanadii ugu weynaa ee fanka Soomaalida. abwaankii weynaa Allah u naxariistay Xuseen Aw Faarax Dubbad wuxuu ka mid ahaa abwaaniintii fanka iyo suugaanta Soomaalida gaadhsiiyay meesha ay maanta joogto. wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii fanka cusub ee Soomaalida, isagoo ka qayb qaatay kobcintiisa iyo weliba kor u qaadida fanka Soomaalida. abwaanka oo fanka Soomaalida soo bilaabay kontameeyadii ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah abwaanada farakutiriska ahaa ee fanka Soomaalida uu lahaa. waxa uu ahaa abwaan sameeya suugaanta noocyadeeda kala duwan. waxa uu qayb ka ahaa abwaaniintii ugu waaweynaa fanka Soomaalida. waxaynu maanta soo qaadanaynaa qiso ku dhacday abwaankaasi oo caan ka ahayd dadkana ay yaqaaniin. waxa ay ahayd qiso cajiib ah oo aad iyo aad u xiiso badan. haddaba abwaanka weyn ee Xuseen Aw Faarax, isaga oo lugeynaya tamashlaynaya mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu la kulmay meel lagu buuqsan yahay oo dadku sawaxankooda iyo bulaankooda uu baxayo. haddaba abwaanka ayaa isagu waxa uu ku leexday halkii buuqa iyo bulaanka uu ka baxayay, dadkuna ay ka qeylinayeen. abwaanka ayaa dhugtay waxa halkaasi ka socda iyo halkaasi waxa ka dhacaya. kadibna waxa uu weydiiyay mid ka mid ah dadkii halkaasi joogay waxa meesha ka socda. qofkii ayaa wuxuu abwaanka ugu jawaabay. haddaba abwaanka weyn ee Xuseen Aw Faarax Dubbad ayaa isaga waxa uu ku soo leexday halkii buuqa iyo bulaanka uu ka baxayay, dadkuna ay ka qeylinayeen. markuu isla soo simay halkii buuqa ka socday ayuu qof ka mid ah dadkii halkaasi taagnaa weydiiyay waxa meesha ka socda ee ka dhacay. qofkii ayaa abwaanka wuxuu ugu jawaabay in halkaasi laga helay gabadh la dhigay laamiga dhinaciisa ama wadada dhinaceeda, lana aqoonin qofkii dhigay iyo weliba qofkii dhalay intaba. abwaanka ayaa isagu wuxuu halkaasi go'aan ku gaadhay inuu isaga qaato gabadha halkaasi laga helay. dadkii meeshaasi joogay ayuu wuxuu u sheegay inuu isaga korsanayo uuna qaadanayo gabadha. gabadhii ayaa abwaankii la siiyey. kadibna sidaasi ayuu xaafadiisii ula tegay, una geeyay xaaskiisa, una sheegay in gabadhani uu wadada ka soo helay iyadoo laamiga dhinaceeda lagaga tegay, familkoodana ay ka mid noqoto. xaaskiisii ayaa iyadu si kal iyo laab ah usoo dhaweysay. kadibna halkaasi ayay kaga mid noqotay familkii abwaankii weynaa ee Xuseen Aw Faarax Dubbad. abwaanka gabadha wuxuu u bixiyey magac aad iyo aad qaali u ah, wuxuuna ugu magac daray Ammaano. gabadhii waa ay weynaatay, waxayna la soo baxday qurux, joog iyo jamaal abwaanka uu la yaabay. haddaba gabadhii Ammaano ayaa waxay noqotay inan qofkii uu jaleeca uusan ka jeysanaynin, inan joog iyo jamaal, sara jooga iyo weliba muuqa ay tahay mid ahlu janno ah. abwaanka ayaa isagu waxa uu Ilaahay qalbigiisa ku talaalay jacayl xad dhaaf ah. jacaylkaasi oo ahaa mid ka dhashay u nuglaanshaha uu nugul yahay gabadhaasi quruxda iyo joogga iyo jamaalka Ilaahay ku maneystay. dadka qisooyinka fanka Soomaalida ka faalooda iyo weliba fanaaniinta sida ay sheegayaan, abwaanka ayaa jacayl xad dhaaf u qaaday gabadhaasi Ammaano. kadibna waxa uu sheegtay jacaylka uu qabo. gabadhii ayaa iyadu waaga ku bixiyay sida la sheegayo, waxayna u ahaysatay aabaheed oo kale. waxayna u sheegtay in aabaheed oo kale uu yahay, aysan aabaheed wax jacayl ah aysan la wadaagaynin. abwaanka taas way u cuntami weysay, waa una liqi waayay. hees caan ka ah geyga Soomaaliyeed oo la yiraahdo Ammaanada Ilaahay ayuu abwaanka sameeyay. heestaasi uu kaga hadlayo maalintii uu jidka ka soo qaaday, sidii u ooynaysay, sidii cidlada u ahayd, sidii qofna uusan u doonayn inuu qaato. waa wacla ama garac, ama sidoo kale dadka halkaasi ka buuqayn aysan doonayn inay qaataan. abwaanka ayaa gabadha waxa uu xasuusiyay xaaladaasi uu ka soo waday, heerka uu gaarsiiyay iminka meesha ay joogto. si kastoo ahaataba abwaanka ayaa isagu jaceylkiisa wuxuu si dhab ah ugu sheegtay heesaasi, isagoo leh Ammaanada Ilaahay
noqo kumaan ilaawine. heestaasi waxaa ku luuqeeya fanaanka codka dahabiga leh boqorka codka Soomaaliyeed Maxamed Suleymaan Tubeec. heestana waxa ay u dhaceysay sida tan. Moqtaay ayaantii ilmadu ka dahaysay indhaha qoysa inay xasuusto saanka wanka shahaatay waxaad igu abuurtaa laad kaliisa waaye waxaad igu abuurtaa laad kaliisa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine sidiiho unkoodiyo hilaabadan uqaarooriyadiisa anaa sawaabari idanka subaxdii wadii isinka waxaad igu abuurtaa laad kaliisa waaye waxaad igu abuurtaa laad kaliisa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haddaba halkaasi aynu kaga gudubno heestaasi amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawin oo abwaanka Xuseen oo Faarax Dubbad u sameeyay gabadhii uu soo korsaday ee amaano. jaceylkaasi ayaa isagu suurtageli waayay soconna waayay gabadhiina abwaanka kaga tagtay halkaasi. qisadaasi oo aad iyo aad u xanuun badan ayaa waxay ka mid tahay qisooyinka fanka Soomaalida mid ka mid ah. qisadaasi adigu maxaad kala socotaa? barnaamijkeena maanta intaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa. in dib dambe inteenu u kulmi doono nabaadiina nooli kulantii amaana Allah.